wargeys ka soo baxa dalka Namibia oo la yiraahdo Economist ayaa sheegay in laba harimacad dhala ah oo loo soo qariyay si aan haboonayn lagu qabtay Somaliland isla markaana ay maxkamadii xukuntay markii u horeysay dambiilayaal si qarsoodi ah uga dhoofinayay harimacadkaasi Somaliland. wargeysku waxa kale oo uu tilmaamay in Somaliland oo dhinac ahaan ku dhawaaqday madax banaanideeda 1991 ay u howlgasho dal madax bannaan. hase yeeshee warbixinta wargeyska Namibia ee Economist ayaa sheegay in si ballaadhan loo rumaysan yahay in Somaliland ay tahay marin weyn oo laga dhoofiyo ugaadha duurjoogta ah oo qaar ka mid ah laga keeno dalalka Itoobiya iyo Kenya, iyadoo la diiwaan geliyay oo la xaqiijiyay in 47 harimacad laga gudbiyay Somaliland oo la geeyay dalalka Carabta ee qaniga ah intii u dhaxaysay 2011 ilaa 2017. wargeysku waxa uu intaasi ku daray in tiro lagu qiyaasay inay ka badan tahay 300 oo harimacad ah laga gudbiyo Somaliland sanad kasta, waxaana la soo xidhay dambiilayaal looga shakisan yahay falkaasi oo ay dawladda Somaliland gacan ka siiyeen koox maxalli ah oo hoostaga urur degan dalka Namibia oo la yiraahdo Cheetah Conservation Fund. waxaana sidoo kale 6 harimacad oo dhala ah oo kale oo da'doodu kala duwan tahay lagu qabtay 5 bishii August deegaanka Ceel Sheekh oo u dhow Berbera. wargeysku waxa uu sidoo kale tilmaamay in ururka Cheetah Conservation Fund ay ka shaqeynayeen la dagaalanka ka ganacsiga harimacadka ee waqooyiga bariga Afrika tan iyo 2005 iyo in sanadkii 2011 ay halkaasi ka sameeyeen shabakad gudaha ah oo ay la sameeyeen xidhiidh wada shaqeyneed dawladda. hase yeeshee Dr. Lauren Marker oo ah agaasimaha iyo gudoomiyaha ururkaasi ayaa sheegtay inay walaac weyn ka qabto dhoofinta harimacadka ee bariga Afrika oo ay saameyn ku yeesheen harimacadkaasi mushkilado bulsho oo ka dhacay meelo kamida Itoobiya, Soomaaliya iyo waqooyiga dalka Kenya. waxaanay intaasi ku dartay Dr. Laura inay Somaliland ku bogaadinayso tallaabadaasi ay maxkamaddu qaaday ee lagu ilaalinayo duurjoogta. horaantii bishan ayay ahayd markii maalmo yar ka hor xukunkan ay xeerka ilaalinta duurjoogta ay meel mariyeen golaha wasiiradu, kaasoo wasiirka deegaanka Marwo Shukri Ismaaciil ay soo dhaweysay go'aankaasi golaha wasiirada ay ku aqbaleen go'aankaasi caalamiga ah. Somaliland ayaa ah dal meel mariyay 5 heshiis oo caalamiya oo ay ka mid yihiin heshiiska ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta sida lagu sheegay wargeyska ka soo baxa dalka Namibia ee Namibia